iyadoo ay maanta ku beegnayd maalintii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u asteeyay maalinta dhirbeerista qaranka 15 bisha afraad ee sanad kasta ayaa waxa maanta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Togdheer lagu qabtay xuska maalinta beerista dhirta qaranka barasaabka gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ayaa si wadajir ah u bilaabay beerista dhirta iyadoo xarunta wasaaradda geedkii ugu horeeyay ku riday xafiisyada dawladda waxaan jecelahay in halkan ka faro in xafiis walba dhirta laga beero si aynu tusaale ugu noqono mujtamaca gobolka Togdheer dadweynahana waxaan ka codsanayaa in dhirta maanta la siinayo inay maaragtay ka faa'iideeyaan oo ay beeraan oo ay ilaaliyaan waa bilicdii magaalada waxa weeyaan dhirtu waa nolosha koobaad waxay isugu jiri doonaan dhirtu qaar hadii la doono midhaba leh iyo dhirtii harka iyo maaragtay sida kale loo manfaacadsanayay waxaan doonaynaa inuu noqdo gobolkeena iyo caasimadeenuba gobol ka horumarsan xagga dhirbeerista waad ogtihiin oo dhirtu meeshay ku badantay waxay ka qayb qaataan xataa roobka way ka qayb qaataan marka walaalayaal waxaan jecel lahay inaynu maanta ka faa'iideysano sidoo kale waxa munaasabadan kooban ee lagu abaabulayay sidii loo beeri lahaa dhirta ka soo qayb galay abaanduulaha qaybta 12aad ee ciidanka qaranka waxaana uu sheegay in ciidanka qaranka ka go'an tahay beerista dhirta aad baan soo dhaweynaynaa hadaan ciidamada nahay waliba ciidanka qaranka anagu dhirta waanu beernaa xiriyaha iyaga oo dhan aad bay uga baxdaa waanu beernaa maanta maalintii sida gaar loo asteeyay waanu ka qayb qaadanaynaa imkana qaybteeda waanu qaadanaynaa mas'uuliyiinta waaxaha kala duwan ee ay ka kooban tahay magaalada Burco ayaa iyaguna xuskaasi ka soo qayb galay iyadoo goobtaasina dhir loogu qaybiyay laamaha kala duwan ee xafiisyada dawladda xaafadaha iyo dadweynaha kala duwan ee degan magaalada Burco maalintii qaranku u asteeyay maalinta dhirbeerista qaranka marka waxii diyaar garow iyo dhir aanu haynay waanu diyaar garownay gobol ahaan Togdheer ahaan marka waxa weeyaan ilaa 5 oo geed baanu bixinaynaa insha Allah hadii wixii hore iyo wixii dambaba imka waxaan ugu talagalay inaan hay'adaha dawladda iyo dadweynaha wixii ay ka gaadhay inaanu ka furiyo wixii aanu hayno iyo ciidamada qaranka oo kala duwan noocyada kala duwan militariga bilayska iyo asluubta waxa kale aanu yeernay 4 xaafadood ee ay ka koobnayd magaalada Burco oo iyagana wixii ay ka helaan qayb ahaan aanu siin doono maanta dhir qaybinta ku daray wasaaradihii dawladda oo iyagana aanu sidooyaashii wasaaradda waxbarashada tii caafimaadka iyagana cidii timaada aanu ugu talagalay inaanu siino dhirtii marka waa munaasabad runtii aad u qaaliya waynu ognahay dhirteennii iyo dalkeennii xaaladooda halka ay marayso wax la gooyay iyo wax dhuxul laga shiday baa qaadanayna waana ka hawlgalaynaa waana dhulbeer dhirtana waa beeraynaa magaaladu waxay ku socotaa xawli dheer dhul aan dhir hore lahayn bay laga dhisaa imanka oo deegaamoobay dhulkaasaanu insha Allah bismillaahi karim aanu gaarsiin doonaa xuska maalinta dhirbeerida qaranka ayaa sanad kasta waxay ku beegnaan doontaa 15 bisha afraad sida uu wareegta ku soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Sheybe Cumar Cismaan Sheybe Shakeeye wararka GTN TV Burco.